Soomaaliya waa dal ku soo jiray 25 sano dagaal sokeeye iyo dawlad la'aan waxaana ku horgudbadnaa caqabado badan oo dib u soo riixayay hanashada dawlad wanaagsan oo ka hana qaada dalka markii ugu horeysay taariikhda ay shacbiga Soomaaliyeed la yimaadeen dareen siyaasadeed oo ku qotoma tilmaamo tusaalooyin iyo taageero wax lagaga bedelo habka maamulka dawliga ah iyo dhiirigelinta muujinta midnimadooda oo keentay in shacbigu ka danqado wax kasta oo xumaana oo xumeyn kara xiriirka u dhaxeeya shacbiga iyo dawladnimada qof kasta oo Soomaali ah waa og yahay in dalka iyo dadkeenu ay u nugul yihiin dhibaatada hareysay qarannimada iyo jiritaanka dawladnimada Soomaaliya ma helin dawlad rasmi ah oo ka difaacda masiibooyinka dabiiciga iyo kuwa dadka ay sameeyaan dadkeenuna waxa ay la daala dhacayeen nolol maalmeedkooda mana noolaan karaan mas'uuliyad la'aan qarameed Soomaaliya waxay u baahan tahay dawlad ka shaqeysa danahooda iyo tan qarankooda oo soo celisa sharciga iyo kala dambeynta dhista garsoor madax bannaan ka shaqeysa ammaanka soo celisa xiriirka Soomaaliya ee caalamku la lahaa daryeesha dadka taagta daran ee noloshooda la kufay abuurta dhaqaalaha furfuran dib u howlgelisa kaabayaasha dhaqaalaha maamulka dawliga ka soo bilowda hoos ilaa heer tuulo ilaa heer gobol dib u eegta dastuurka dalka isla markaana turxaan bixisa soo celisa adeegyadii bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo guud ahaan adeegyada aasaasiga sida korontada biyaha taleefanka iyo dhammaan baahida bilowga nolosha iyo in xoogga dhalinyarada oo ah mid muuqda oo noqon kara badbaadada dalka in loo sameeyo shaqo abuur iyo in ay kaalin ku yeeshaan geedi socodka baahinta maamulka dawliga ah iyo adkaynta ammaanka dalka Soomaaliya bishii February ee sanadkan waxaa la soo doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dad badan oo Soomaali ah ay u muujiyeen kalsooni ka badan tii loo muujiyay madaxdii dalka soo martay waxaana dadka badankiisu ay ka filanayaan waxqabad ballaaran oo dhinacyo badan leh ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabay Xasan Cali Khayre waxa uu soo dhisay xukuumad barnaamijkeedu yahay gaarsiinta Soomaaliya dal abni ah garsoor daacada dad wada jira iyo dawlad isku filan si loo gaaro nabad iyo nolol oo ah halku dhiga 4 sano xilligan dawladda federaalka ee Soomaaliya warbixintu waxa ay diiradda saaraysaa in wax laga ogaado qodobada aasaasiga oo ah nolosha iyo dawladnimada maxaa wax laga qabtay maxaase u baahan in wax laga qabto xukuumaddan uu hogaamiyo Xasan Cali Khayre oo 80 maalmood jirsatay waxa ay wax ka qabashadeedu ugu horeysay wax ka qabatay habeynta maaliyadda iyo joogteynta bixinta mushaarka waxaana ay ka hortagtay musuqmaasuqa iyo wax isdabamareynta waxay sidaas oo kale wax ka qabatay arrimaha amniga oo muhiimad qaas u leh jiritaanka dawladnimada waxaana ay mamnuucday in hubka wadooyinka lala maro taas oo keentay in isticmaalka hubka uu soo yaraado magaalada caasimadda ah ee Muqdisho muddadii howlahaasi ay socdeen 18 bishan aynu ku jirno madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana lagu soo dhaweynayay muddadii 100 maalmood ahayd ee madaxweynuhu uu xilka hayay khudbad uu halkaasi ka jeediyay wuxuu madaxweynuhu sheegay in shacbiga Soomaaliyeed ay adag tahay inay ku jiraan ama ku noolaadaan cadaalad darro waxaana uu sheegay inuu qaadi doono tallaabooyin uu wax kaga qabanayo dhinaca cadaaladda ammaano iyo amni waa hawl iswadata oo hadda aan wadno cadaaladda soo fiirsada soo ogaada 3 bilood soo socota waxaan ka qabanay cadaalad waa dhamaatay ummadan Soomaaliyeed oo dhibaataysan in xaqooda heli waayaan wax fiican ma ragga odayaasha oo xaakimiinta waxaan idin sheegaynaa haddii awal ay jireen inaad guryo xukuntaan 5 jeer oo isku rogtaan waqtigeeda waa dhamaaday in hooyo ooyeysa ama qof xaqiisu ooyaya aad dhibaataysaan waqtigeeda waa dhamaaday cadaalad baa idinka raba haddaad cadaalad keeni weydaan annagana ma madhashaan shacabka ma madhashaan dawladda ma madhashaan waxaad ku dambaynaysaan xabsi mar damba dhici mayso oo anaa ballan qaaday oo dawladdaana ballan qaaday qof Soomaaliyeed intuu hortago maxkamad cadaalad darro lagu sameeyo hawshaasi waa waxyaabaha dalkan meesha ay taagan yahay gaarsiiyay oo Ilaahay noogu carooday oo aan adduunka uga hooseeno 2 qof iyo 3 qof
oo xun ka yeeli mayno inay magacana isticmaalaan ummadda Soomaaliyeed ee duleeyaan ee dhibaato u geystaan oo ay xaqdarro ku sameeyaan u adkaysan mayno waa idin la xisaabtamaynaa haddaad hawl fiican qabatidna oo cadaaladna annagana waa idinku abaalmarinaynaa aakhirana ilaahay waa idinku abaalmarinaya jannad ku gelaysaan haddaad dhibaato samaysaanna annaga idinku ciqaabayna aakhirana waa ku dambaysaa si wax looga qabto dhibaatooyinka garsoor ee dalka ka jira Soomaaliyana la gaarsiiyo marxalad ay ku noolaato cadaalad loo siman yahay waxa uu madaxweynuhu magacaabay guddi khubaro ah oo baaritaan ku sameeya haddii ay jiraan qaladaad iyo cadaalad darro iyo gaboodfallo ka jira garsoorka dhexdiisa guddigaasi oo ka kooban 9 xubnood waxa uu hawl ka bilaabay xabsiga dhexe ee Soomaaliya oo ay ku jiraan dhammaan maxaabiista xukuman waxa intii ay shaqada wadeen ay la kulmeen dad dhibanayaal ah oo aan cadaaladii rasmiga ahayd ee muwaadinku xaq u lahaa aan helin guddigani waxa ay dul istaageen duruufihii jiray waxay akhriyeen faylalka dhibanayaasha waxayna markii ugu horeysay soo saareen 13 qof oo u xiran danuub aanay ahayn in xabsi loo galo garyaqaanada sharciga ayaa sheegay in markii ugu horeysay taariikhda dad xabsiga loo dhigo lacag yar oo aan macno badan lahayn sida dhibane muddo xabsiga uu ugu jiray lacag dhan $30 guddiga khubarada ah baaritaankoodii koowaad natiijadii ka soo baxday ayay u gudbiyeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana uu soo saaray cafis loo sameynayay 13 qof oo u cadibnaa cadaaladda dhibanahan muddo 5 sano ah iyo 8 bilood ayuu ku jiray xabsiga dhexe waxaa lagu soo eedeeyay lacag dhan $912 laakiin waxa uu sheegay in lacagtu aanay sidaa ahayn oo la badiyay lacagta rasmiga ah ee uu qabay ay ahayd $70 oo kaliya aniga waxa laga soo qabtay xaafadda hodan meeqa lacag ku xirnaa $915 meeqa sano xirnaa 2 sano lagu xukumay maxkamada ay ugu xukuntay 2 sano xariga iyo $915 labadii sano waan dhameystay 3 sano oo dheeraad aan xirnaa awood cidii iga gudbisana ma lahayn hooladii haddii maxkamadda ugu qortay inaan joogo danta ugu qasabtay maantana dee ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad iskale banaanka nakeen ummad ilaahay noo soo hadeysiyey 5 sano xirnaa 5 sano lacag soo xirnaa 2 sano bas aan ku xukunnaa aniga maxkamadda 2 sano iyo $915 ay tiri kabacdi wax waro lagu soo celiyo ma jirin waan ku jira 3 sano oo dheeraad aan ku jiray marka lacagta lagu eedeey ma qaadatay lacagta la igu eedeey ma qaadan aniga lacag way jirtaa laakiin lacagta sinta leeg aan ma qaadan mise lacagta $70 marka $70 $915 digriya kadibna 2 sano lagu xukumay 3 sanadoodna aad sugaysaa lacagtaas cid ka bixisay hadda maanta waa lagu sii daayay ma sha Allah maanta farxadii lama soo koobi karo farxadii aad maanta meeshan lagu soo koobi karo xukunkiisu wuxuu ahaa 2 sano 3 sano iyo dhowr bilood waxa uu sugayay in lacagtaasi laga bixiyo dawladda Soomaaliya maalintii waxay maxbuuskaasi ku bixinaysay $3 bishiina waa $90 5 sano iyo 8 bilood ayuu ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho waxaana ku baxday oo dhinaca dawladda noloshiisa kaga baxday 5 sano iyo 8 bilood lacag gaaraysa $6,120 waxaana uu u xirnaa 5 sano iyo 8 bilood $70 iyo sheegasho $912 dhibanahan kale waxa uu xirnaa 5 sanadood waxaana uu xabsiga dhexe kala kulmay sida uu noo sheegay wanaag isagana waxa laga soo xiray shalambood waxa uu sheegay in xabsiga uu kula kulmay dhaqan wanaagsan laakiin waqtigiisa nolosha uu la kulmay cadaalad darro baasan gadayo nuur calay waa imise sana xirnaa 5 iyo 7 bilood leeyahay maxaa lagu soo xiray lacag la igu xiray lacagta mise lacagta 1500 ah marka waxa uu xirnaa 5 sano iyo santiga in lacagtaas adoon bixinaada 2 sano awal lagu xukumay 2 sano waa dhameystay inta kale lacagta aan joogay ku qanacsanaa inaad joogto de ma ka qanacsanaa hadaa dhaho iyo hadii ma waa ka qanacsanaa dhaho qasbiyaan waay ma markii ugu horeysay guddigan yimaado guddiga maalinta imaadiya farax bilaabay oo hurdi bilaabay hurdi jiran hadda alxamdulillah madaxweynaha Soomaaliyeed oo maanta luquntaan biye ya maxad ilaahay iska la gul allahas marka waa ku qanacsantahay ka qanacsana deesmadan ka qanacsana madaxweynahayna ka qanacsana azil wasaaraha ka qanacsana idda ka shaqeeytana ka qanacsana maadaama aad xaq darro ku xirnay muwaadin Soomaaliya tahay
dib ma u dacwoonaysaa dadkii dambiga kaa galay allah subxaanahu watacaala u dacwoona anhu ma dacwoonay aad iyo aad umaasan tirada dadka la cafiyey waa 13 qof dhammaantood u xirnaa sababo la xiriira lacag aan badnayn dadka meesha aan kula kulmay waxaa ka mid ahaa dhibanayaashan kale waxaa ku jira qof $100 u xirnaa ku dhowaad 2 sannadood maxaa lagu soo xiray lacag ay meeqa waa lacag 200 imsa xirnay waxaan xirnay sanad iyo dhowr bilood sababaha ay u dhaceen maxkamaddu ku xukunta ma ku qanacsanay حد سنة وقع سنة سنة ومقام سنة. هذا وقع سنة. وحي وح أني أحون معه. هاي. حتى وحلا وحول لقطة ذا كوجي أفكار. صح. شبق أني أذكر دي أنا قصة. هاي. كل هذا ما قد صالحات. هاي. هل كان كحرن وحر وصاحبين. أنت وحي ده صحوا أرنتي الإيجل. هاي. أنا كان مرشح محكمة دي وحص أقون وملان نين باورين إسكا أو بريلي أو مكانيكا. هاي. مركواي عند نين إسكري أو صاحب المقري. نينك اسكري عند نينك صار ماشي إيه حرن صح إيه هوشيس إيه هاي مرك عندي أساسا مر $8 مر $20 مر $60 أيو يسوي أنا كان اسكري نسيجر هاي أنا كان هوشي دان كراع هاي ما قدر عندي هذا الحكتي نينك وانو سبيه ويا الحكتي بسيط هاي مرك نينك اسكري كان فرقه ما هين وأجا هاي هاي صار درتنا أنت أنا حبسي كوجرا هيا فدغينيسي كدب لعقتي نينك اسكري سينيسي وسينا أنا قال له عندي يحكوا العكس ما غير $200 لبدي $200 وبحويس وبحويس سندي ما حدا مساحه $1 وقفر احسن تاع الوسيله حد ما شاء الله كفر حسنه maxaa lagu soo xaray aniga waxa liigu soo xiray $100 waxaan u xirnaa muddo 2 sano waxa liigu soo xirnaa waxa kulli taba sharciga markii la hor keeno dhibaayo sharciga wuxuu dhigaa qalad iyo sax waa qaldanaad aniga qaladkaygan ku xirnaa muddo qaladkayga lii cafiyay maanta xurmadaada heshaa liileeyahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa wado fiican laba sanadood hadduu waxaad diyaar u tahay inaad nolol bilaabo insha allah waxay ahayd la yaab iyo lama filaan dad dhalinyaro ah mustaqbalka Soomaaliyeed lahaa in waqtigoodii muhiimka ahaa ay ku qaataan xabsi iyagoo haddii ay heli lahaayeen cadaalad fursad u heli lahaa in noloshooda si caadi ay u sii wataan waxa la yaab igu noqotay intii aan xabsiga joogay in dadkii sharciga ku takrifalay ee muwaadiniintaas